saami qaybsiga waxaa la tixgelinayaa oo aad iyo aad loogu fiirsanaya saami qaybsiga golaha baarlamaanka ka hadlaya waxa aad uga qayliya gobolka awdal waa la dhagaysanaya waa la tixgelinaya xeerka golaha wakiiladu golihii golahan ka horreeyay ee la soo doortay 790 ilaa 2005 xildhibaanada ahaa muranka xeerkan meel uu saari kari waayay xildhibaanadii waqtigaa ku jiray golaha wakiiladu xaaji cabdi maanta ka sii mid yahay ee ka soo jeeday gobolka awdal way ka dareereen oo way qaadeen arrintaasi waxa weeye arrinta saami qaybsiga gobolada ee xildhibaanada ama xubnaha golaha wakiilada 13 xubnood ee loo qoondeeyay gobolka awdal cadaalad darro ku dhacday wixii ka horreeyay gobolka awdal 16 xildhibaan kumay qanacsanayn 16 in gobolkaasi yeesho dood baana ka furnayd oo madaxweynihii Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal oo waqtigaa dalka dad yaqaan ahaa iyo dawlad yaqaan ahaa iyo dal yaqaan ahaa uu ogolaa tabashada gobolada ka jirta galbeedku in wax laga qabto uu ogolaa oo in badan laga ballamay laakiin numberka la isku keeni kari waayay 16 laga cabanayay in wax lagu daro iska daayay waxba laga dhimo 16 baa lagu marsiiyay iyadoo la yiri qaranka la iibinaya doorashadaas ictiraafkii ku xiran yahay marka inta maantaan ka baxno waana temporary bali karta ma aha hadii aan qaranka ku dul qaadanaynin haddaan hor socodka dimuqraadiyadda ku dul qaadanaynin haddaanu lahayn maanta ictiraafkii doorashadan ku imanayay bal sabra waa la kala heli wixii inuu kala maqanay maanta way naga taagan tahay maanta meel aanu dadka iyagii ku marino 16 baatana lagu galayaa doorasho ma joogto arrintaa waanu qaatacnay waanu ka soo horjeednaa mana aqbalayno waxa weeyaan 13 sano laga joogaa markay xildhibaanadan doorannay haddaan 13 ku gelanno horaan ugu geli lahayn 13 sano waana 5 sano waxa lagu doortaa laakiin waxa ila tahay inaanay waxba u waayeen ragga gobolada dhexe inaanay waxba u waayeen habeen dhaweyd baan daawanayay 3 xisbi qaran gudoomiyaashoodii madaxweynuhuna ku jiro gudoomiyihii komishinka waxa la isla qaatay foodka sidii hore in lagu galo waxaan leeyahay dawaaba isku filan yihiin raggaas annagu kullay aadna waan uga hadli doonaa intii la wada jiro waan ballansanahay inaan ka hadalno waxa weeyaan haddaad i weydiisay hordhaceeda nimanka reemaxooyadayhi aad iyo aad bay maaragtaa iskugu filan yihiin waxa la yidhi nin reer ooga ahaa oo qodaxdu aanay mudi jirin oo sida geeluna ahaabaa dhintaa la yidhi wadaadkii maydhayaa yidhi salaada miyaanu tukan jirin waxa islaantiisii baa tidhaahday ilaahay salaadba ma badina wixiisaan buu iska wadwadan jiro ilaahay salaad bay ninka joonayo inuu salaad tukaday qabtay waxa weeyaan ilaahay kuwa darfaha uma baahin kolkay 3 xisbi qaran gudoomiyaashoodii leeyihiin madaxweynihii beelaha dhaxa yahay de waa kuwa sheekada isla helay foodka ku galoon hareeraha waan uga saxabaynaa laakiin annagu kuma galana marnaba dibna waan ka sheegi doonaa assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan fadhinaa arrintaas saami qaybsiga arrintaas markii hore sidii doorasho loo galay waxay ahayd 5 degmo ee 60kii oo gobol noqday iyo berbera oo lagu dhuftay 2.5 saddex sano ku ee koonfurta xeerku wuxuu leeyahay ilaa xeer baa shaqeeya dadku xeer bay ku wada shaqeeya doorashada imika wixii ka dambeeyay laguma gelayo taasi hore ay ku galayno ee waxa lagu gelayaa waa in dalka la tiriyaa tirakoob way dalka laga qabtaa leeyahay waa isla loo qaybsadaa xukuumadda waxaan ka codsanaa inay tirakoobkii 3 bilood ku qabatay ay qabato haddii ay qaban weydo oo tirakoobna la qaban waayo sidii lagu galo mar labaad tijaabaan noqota awdal lahayn ma gelano dadkayga waxaan u sheeganaa in aan tijaabo labaad oo awdal ay doorasho galaysaa oo tii oo kale aanay jirin sidii doontaa u dhacday taas aan ugu caddeeyna gobolada kalena waa nabad oo nin kasta uu ka cabanaya sidaa daraadeed waxaan xukuumadda u sheeganaa inaan annagu haddaanu awdalnahay aanu ku gelayn doorashada tii hore ay naga go'an tahay in aan doorashada aanu gelin wasalaamu calaykum.